kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan ku soo qaadanayno socdaalkii horumar toobiye ee hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumarna ay ka anba bixeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga oo anba bixeen dhinaca gobolka Erar si uu xarigo ka soo jiro bundada taariikhiga ee Wangay una soo kormeero mashaariicaha waaweyn ee gabagabada ku dhow una soo ogaado xaaladda bulshada waxaana wafdigu uu sii maray intii uu ku guda jiray socdaalkan horumar toobiye tuulooyinka idishaala biiqa kulana kulmayay bulshada tuulooyinkaasi iyadoo markii wafdigu gaadhay magaalada Dhandhame ee degmada Baabilina shacabka magaaladaasi ay farxad iyo soo dhaweyn diiran kala hor yimaadeen wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ee ku guda jiray socdaalka horumar toobiye madaxweyne Cabdi Maxamed Cumarna kula hadlay shacabka magaalada Dhandhame ee degmada Baabili wana mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee ay kala hor yimaadeen wana warbixiyay ujeedada socdaalkoogan marka koobaad waa salaamaya assalaamu calaykum waxaan sida aad ka wanaagsan sharafta leh ixtiraamka leh ee aad xukuumaddiina iyo dawladdiina u soo dhaweyseen aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda mar koobaad iyo mar labaad يا مرست حد وأنا كم هالعلنا يا أربعة وما سدين. أنت هذا قصة قد بنا وحويان رونهانتي سيدا كم مقطع وحويان وتشيلنا يا قلبك فرن عاد نقول سود ويسين وامد آل لو فرحان رنتي وإيديك هي أنا جوا مورال أخوش شقينا أما أنا وحوي حقوق وانا نسيرسا مركا آل بدو ما سنتين مرة بعد marka hadda waan sii soconaa anagu waxaan u soconaa meesha la yiraahdo Wangay bundadii isku xileysay wabiga Wangay lakidii salaxaad way kala goonaydo waa ogsoontiin meesha la yiraahdo salaxaad iyo lakida iyo xamaro ama deegaankaba waxa lagu soo wareegayay 3 kilomitir oo inta Jigjiga laga baxo cad saba la tago awaas lagu soo noqo waxa gadhira soo mara xagga laga soo wareegayay marka safar dadka ku ahaa 3 kilomitir oo hadda marka hadii waxawaya noqonaya hadii labada degmo laga eego 7 kilomitir noqonaya oo yani bundada la sameeyay waxay noqonaysaa mid wax ka taraysa isku xirka deegaanka oo waxawayaan ninka hadda ka soo baxay salaxaad iyo lagida awal xagga ay aad soo wareegay maanta laakiin halkan buu imanay dhadhabaro imanay oo waxawayaan soo sameeyay sheetole kuma xidnayn oo iskuma xidnayn waxawayaan xagga aad soo ka wareegay xagga Soomaaliya laakiin maanta wuxuu ku khasban yahay inuu wadadan soo maro oo halkan waxa weeye soo maro ayuu ku khasban yahay isagana faa'iido ah sababtoo wadadii goobi shabeelo kala xidhnaaba bundooyinkii la saaray haday may muqlo noqoto iyo haday noqoto waxa weeye qubi iyo haday lagido noqoto iyo salxaad noqoto intaba waa la ku soo xulay way ku xulmayaan marka taas waxaan dhihi karaa may muqlo wanaagsantiin halkan ma soo maray waxa ka wareegaysay dhan kale ka wareegaysay marka laakiin maanta systemka ku xidhan tahay inta hadaan ka soo gudbo waxawayaan runtii ilaahay hanagu sii wada waxawayaan marka arkay hadda deegaanka uu qoyin yahay wax lagu farxayo roob khayr qabana Allah nasiyo degmadana waxaan leenahay degmo barakaysan dadkeeyo Allah ka dhigo waxawayaan loo soo shaqo tago waxawayaan waalidii dadkeeyo Allah barakeeyo أكبر ما سدينا بينا دقنا الشي نبار حسبي مشدا مدري ليو حسبي مشدا مدري ليو دقنا الشي نبار حسبي مشدا مدري ليو حسبي مشدا مدري ليو wafdigu sii hayay jidka ayaa waxa uu sii maray tuulooyinka dhowratay Cali Ethiopia Ibrahim Muuse Obasha Shilinle oo ka tirsan degmada Baabili
iyadoo shacabka tuulooyinkaasina ay si diiran u soo dhaweynayeen wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ee socdaalka hormartoobiyey madaxweynaha iyo bulshaduna ay isku xog wareysanayeen waxaana madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay ay indheeyeen biyagelin xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu ka hirgeliyey tuulada Shilinle oo madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay ay kormeereen mashruucan biyagelinta ee adeegga siinaya bulshadaasi intaas kadibna wafdiga ayaa u dhaafay dhinaca tuulada Dundumacadka oo shacabka tuuladaasi ay si diiran u soo dhaweeyeen wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar waxaana madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu xadhiga kaga jiray tuulada biyagelin xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu ka hirgeliyey tuuladaasi waqti xaadirkana bulshadu si rasmi ah uga faa'iideysanayso biyagelinta xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu uu hirgeliyey madaxweyne cabdi maxamuud cumarna xadhiga uga jaray waxaana madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu kula dardaarmay bulshada inay muujiyaan dareen lahaansho ilaashadaana qasabadaha iyo dararka biyaha ay xooluhu ka cabaan biyahana si hufnaan leh uga faa'iideystaan maadaama xukuumaddu ay ka jawaabtay su'aalaha horumarineed ee hadda ka hor shacabku ay weydiisteen xukuumadda waxa weeye horta noloshu waa 1000 waad garan karaysaa marka meeqaamka biyuhu ay leeyihiin sida aad ugu faraxsantiin baan anagu ugu faraxsanahay midda kale idinka iyo anaga horta idinku waad cabaysaan oo ku faraxdeen anaguna inta ku faraxdeen in ka badan baan ku faraxsanahay 100% oo xaqiiqa waxa weeyaan waayo wax la isku qabto joojiyo dadkii haday biyo laan yihiin wax qabad lagama sheekayn karo waxa weeyaan biyo la'aantan waxa ka sii dareed colaad ba ka dareed doorkii horeysay halkan aan maray waad garanaysaan qaabka ahayd iyo nidaamku sidoo ahaa maanta waxa weeyaan Dundumacad iyo deegaankaas dhow waxaan maraynaa baabuurtaas alcad baan ku maraynaa waxaan ugu soconaa waxaan ognahay wax qabadkii aad qabateen iyo wax qabadkii ciidanku qabtay ayaanu waxa weeyaan baabuurta ku soconaa shalay waad garanaysaa sidii lagu soconay iyo qaabka shalay halkan markaa maray doorkii ugu horeeyay kii ku xigay laba waad garanaysaan intay nagu qaadatay 8 cisho nagu qaadatay halkan iyo waxa weeyaan maxaan ku raay 7 cisho fiiq iyo baabuli dhexdeeda wada xumadii oo dhiiri waxaan ku jirnay baabuurta inta nabadiid loo gelin nabadiid halka iga dhig 7 cisho la geliyay markay ugu yar tahay waxaad maqraati ka tihiin in maxaan ku raa marra dhiiri uu la geliyay markaad dhiiriga ka baxdaan dhiiri kale oo nabadiida uu la geliyo labadaas baan ama dhiiri ba ku qabanayo waxa wado ama god baad ku dhacaysay ama haddaad god ka baxdaan dhiiri baad geli haddaad ka baxdaan badi ba taqaanay marka taabiyaha wadada lafteeda yaa wax Ilaahay lagu mahadiyaa oo wadan hadda gaariga lagama qabanaynin intaan soconay waxa weeyaan shalay wadada soo garanaysan mid kalena waan idinku bishaareynaa wadadan oo laami ah hadda la bilaabaya oo laami ah waxa weeyaan qadaraaskeeda hadda uu dhakisan yahay isla sanadkan baa la bilaabaya sanad hore ma 8 wadaan maxaan ku raay oo laami ah la sameeyay wadada inagu horeysinay waa wadadan isku xidha baabili iyo waxa weeye meesha la yiraahdo fiiq weeyaan tu kale inta jijiga ka soo baxdo oo laami ay timaado jijiga ka soo baxdo galaash timaado oo galaash ka soo baxday waxay tagaysaa dhagax madow waxay tagaysaa sagag halkaas ay garba ka gali garba markay gashara dhanaan bay gelaysaa halkaas ay mataqaana waxay kaga dhaysaa wadada dhanaan laamidi kale kaga daraysaa waa wada kale oo iyaduna laami oo hadda la bilaabay iyadana sanadka labada wada la bilaabay marka wadadaas inay bilaawanto iyo inay dhamaato waxay u baahan tahay taageeradina u baahan tahay injineerada waxay wadada shaqeynaya oo ka shaqeynaya hadda kuwa arkiina way jiraan kuwa kale oo soo socdana way jiraan injineerada wadada ka shaqeynayana inaad maxaan kula ilaashataan yaa loo baahan yahay iyadoo hadda wanaagsan tahay wadadu markii laami laga sii dhigana waad garan karaysaan ama waxa laga yaabaa xilliga inaad aragtaan ba oo way ka sii fiican tahay marka laami laga dhigo marka si kastaba haatee waxa weeyaan Ilaahay baa mahad ku leh
oo inaga saaray shalay wixii aan soo marnay hadday nabadgelyo darro tahay iyo hadday waddo xumo tahay iyo hadday waxa weeyaan biyo la'aan tahay waxaa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale oo marka koobaad in ilaahay loo biyaha inaad alxamdulillahi tiraan baa loo baahan yahay markaasay biyahani sii hagaagayaan marka labaadna waa inaad ilaashataan dudumacad waxa weeyaan biyaha waa qasabadaha la ilaaliyo qasabadaha la ilaashado ta kalena wax kale la isfari maaye dee ilaahayna ku xamdiya nabadgelyadii iyo horumarkana ilaaliya saasay marka mataqaa isku ognahay salaamu calaykum shacab ku dhaqan tuulada dundumacadka ayaa waxa ay ka mahadnaqeen horumarka midhihiisu muuqdo ee xukuumadoodu sida ka go'naanshaha leh ay ugu hirgelisay ballanna qaaday in si habsami leh uga faa'iidaysanayaan biyaha diyaarna u yihiin in si fiican ay u ilaashadaan horumarkan loo hirgeliyey cabdulaahi maxamed baa la yidhahdaa qabaluhu waa dundumacad waa meesha iyada oo manacad lagu martay adugu bartay ee noo ballan qaaday ballanqaadkaagii waan helay midhihiisii baanu cunaynaa ducooyin iyo farxad iyo farreed ayaanu kugu soo dhawaynaynaa cabdo cawaalow kii ilaahay ciseeyeyow ciiddaneen hooyo cidda cidhabta saarta aday ku caleema saartay cibrigaa jiraan ku leenahay biyuhu waxa weeye waanu ka dharagnay waanu haysannaa halkaannu u doonanayna waanaan kuu sheegnay erar bay ahayd dararku way buuxaan way socdaan aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay dad iyo dunya baanu ku faraxsannahay magacayga mukhtaar cumar bashiir baa la yidhahdaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin goobtan aanu joognaay waxay ahayd dundumacad baa la yidhahdaa meel waxay ahayd oomanaa meel waxay ahayd geed la yidhahdo marqamaydh bay lahaan jirtay adhigu kolku 7 qado ama 8 qado ayaa la odhan jiray carruurta halkaa geeya adhigu inaga ma yahay marqamaydhkaa noo cuno oo cadaadda salkeeda geed dhaacaan labu ka cuni jiray alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaanu ooli jiray bankaasaanu ooli jiray intaanan halkan soo degin dumarkanagu waxay rafaad bay koo ugu yidheen meel 50 kilomitir noo jirta oo la yidhaahdo erar ama seena qabanawo oo qow ah oo biyo nadiifa xitaa aan laga helaynin ayay intay jaagi qaataan ama salool wax la yidhaahdo ayay tegi jireen 6 saac baa lagu maqnaan jiray 6 saac markaasay ninkii iyo ilmihii oo isla engegay oo biyuhu afka u saarayna helaynin ayay iman jireen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin cid waliba way ogeyd dowlad deegaankeenna iyo xisbigeenna alxamdulilah waxaa uu inoo sameeyey waayo badan buu madaxweyneennu halkan maray ballanqaad buu noo ballan qaaday wuxuu noogu ballan qaaday waxaanu odhan jirnay marka aannu gawaarida aragnay oo biyiyaannu odhan jirnay biyihii waannu ka hamiiq tirnay alxamdulillah wuu naga hamiiq tiray dararkii baa dusha ka yaacaya qasabadihii baa la furayaa islaantii jeenigaarka ku dhaansan jirtay barigii hore tii dameerka ku dhaansan jirtay ee rafaadkaa lahayd baa la yidhi yaa barkada loo sameeyey 14 barkadood baa halkan laga qoday waxaa la yidhi kaariyoono ku soo dhaanso dameer hareerin halkaa ku soo dhaansaa la yidhi haddana kaariyoonihiiba xukuumaddaannu tidhi wallaahi gabdhihii waa ku rafaadsan yihiin waxaa la yidhi gurigaaga hortiisa qasabad kaga dhaanso marka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa laydhkii baana dul taagan waxaannu hellay caafimaadkii baa kana iskuulkii baannu hellay sayladdii baannu hellay nabadgelyadii baannu hellay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan leeyahay madaxweynahaygow maamulkii dalkaygow mahigaanka roobkow miyi iyo magaalaba meeshaad maraysaba malab baa la cunayaa malab baa la cunayaa waxaan kugu soo dhowaynhaynaa si wanaagsan hambalyo biyihii waa kuwaas wax waliba waa bulantii jiifkan wax walba aanu maarta ku raaxaysannahay magacayga khadar axmed maxmed baa la yidhaahdaa maanta farxad waxaan ku hadlaba ma garanayo madaxweynihii baan hor taagnahay madaxweynuhu markii kale uun halkan maray ruuxii ugu horreeya gacanta qabsaday baa ku booday waxaan nidhi madaxweyne biyo baan nidhoon ku dhawaaqnay biyo waa ballan buu yidhi madaxweynuhu ballan baan idiin galay inaan biyo idiin bixiyo biyaha annagii maanta indhahaad ku aragtaan waxaa loo dhaansan jiray meel mishiliya qabana waa loodhan jiray haweenku halka ayay ku soo dhali jireen iyagoo foolaha umula intay halkan ka tagaan ay dameeraha dhaamiyaan haddaba alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waad aragtaan biyaha annagii madaxweynuhu hawaaraan leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya hawaaraan leenahay waa iga ballan ilaahay maanta ninkii aad ku tidhi baan ahaa horta garabkaaga allaha galo ma haddii igahoo waan hayaa maanta gacanta midigtaannu kugu salaamaynaa madaxaagu ha raago goggaagana jannadii baannu ugu bishaarayna aakhariya adduunba mahad ilaahay baad leedahay waana salaamanta magan allah waan hellay wixii aan doonayna
inta kadib wafdigan socdaalka horumar toobiyay uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sii hayay jidka isku xidha degmada baabil iyo fiiq waxaana sidoo kale wafdigu uu sii maray tuulooyinka dhaala siman dhanqa haruheebaan oo ka tirsan degmada fiiq iyadoo shacabka tuulooyinkaasina ay soo dhaweynayeen wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ee ku guda jiray socdaalka horumar toobiye ducaan hoo ku leenahay halkii aad maraysaba ducaan hadiyad ku siine hooyada iyo aabbaha jannada horay eebbahay u sii geeye halkii aad maraysaba ducaan hadiyad ku siine oo hooyada iyo aabbaha ilaahay jannada horay u sii geeye cadowgaaga goortaad seeshaan adigu guulayso gaalkiiyo islaankana dhammaan lagu guddoonsiiye oo giddigoodba hadalka tidhaaha u gucleeyeene sidoo kale wafdiga ayaa indheeyay kulliyadda tababarada farsamada iyo xirfadaha ee fiiqeed iyadoo madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotayna ay indheeyeen gudaha kulliyaddan tababarada farsamada iyo xirfadaha ee fiiq oo dhismeed waqti xaadirkan meel fiican uu marayo iyadoo intaas kadibna wafdigu u gudbay dhinaca magaalada fiiq iyadoo markii ay gaadheen magaalada fiiqna shacab ku dhaqan magaalada fiiq ay kaga hor yimaadeen wafdiga duleedka magaalada tan intii wafdigu galayay gudaha magaaladana shacabku ay safnaayeen hareeraha jidadka si diiran u soo dhaweynayeen wafdigan hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ee ku guda jiray socdaalka horumar toobiye waxaana habeennimadii wafdigu ku dhaxay magaalada fiiq iyadoo aroornimadina uu qaaday jidka isku xidha fiiq iyo xamaro ayna sii mareen tuulooyinka hooda weyne qudhacmeydal hardhagax goohdi shacabka degan aagaasina ay si diiran u soo dhaweynayeen wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynuhu uga mahadnaqaya sida diiran ee shacabku ay u soo dhaweeyeen iyadoo markii wafdigu gaadhay magaalada xamaro ee degmada xamarana shacab ku dhaqan magaalada xamaro ay soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay madaxweynuhuna uga mahadnaqay sida diiran ee shacabku u soo dhaweeyeen ugana warbixiyay ujeedada socdaalkan horumar toobiye
xamaro iyo fiiq inta u dhaxaysa iyo baabil iyo fiiq inta u dhaxaysa intuba laami weeyaan laami baa laga dhigayaa intaa ka horeysa laakiin waxaan ka sii gaarsiinaynaa wadadan maadaama laamidu waqti qaadanayo shirkadda liyu waxay samayn doontaa haddii la yidhaha waddada inay sideeda ku soo celiso oo wadda yacni maxaan ku raha iyadoo noocaasa in laakiin dhaqsan loo hagaajiyo oo godadka la buuxiyo taasaan ku dhaqsanayna haddii la yidhaho marka haddana waxaan u soconnaa meesha la yidhaha waangay oo xadhiggaan ka soo jaraynaa buundadii geeldooxna waan soo eegi doonaa haddii la yidhaho kadibna qubi waan ku soconnaa intaa kadib wafdi oo ku guda jira socdaalka horumar toobiye ayaa u kicitimay dhinaca degmada waangay isagoo sii qaaday jidka isku xidha degmada xamaro iyo waangay waxaana wafdigu intii jidka uu ku sii jiray uu si kadiisa ula kulmay reer geediya oo si kadiisa ay ugu kulmeen goob lagu magacaabo balle shariif oo ku taalla inta u dhaxaysa xamaro iyo waangay madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo reerkan geedigihiina ay isxog waraysteen ciddii baa daaq weydo xaganoo rooblaan ku soconnaa xagee rooble دكتور روبلاني واصح ما عدي ناوي عدي بيك هوريسا واصح وي دكمدنا وان جاي ويا وان soo noqon kalka soo dawagsanay soo noqonaysa doog markii roobku واصح anagu waan geey ku soconay waan geey ku soconay anagu waan geey maanta ku reelayaan ku noqon iyagoo intaas kadibna aan weydiinay dareenkooga iyo kulankan kadiska ah ee iyaga iyo waftiga dhaxmaray magacaygu waa xareed cabdulaahi annakii oo geediho soo guurine yaa madaxweynihii la kulannay raashin buuna siiyey sonkor buuna siiyey waa nibcoonay waa nabadgelyo madaxiisa alla haraajiyo waa sidaa nabad may weli horema kulmi waa maanta aad baa maanta ugu faraxsanahay ardo cumar ibraahim waa sida waxaan dareemi oo barwaaqo bashbashayn ma jiro waxaan ku ducayn jannada aakhiro adduunka oo garabkiina Allah galo daaraha jannada iyo kuwa adduunka baa Allah idin siiyay ceeshka Allah idin furo waa sida intaa kadib wafdiga socdaalka horumar toobiye ayaa qaaday jidka una jeedsaday dhinaca degmada waangay iyadoo markii wafdigu gaadhay degmada waangayna shacabka degmadaasi ay si diiran u soo dhoweeyeen kalena hor yimaadeen farxadii reerayn maadaama shacabka degan aagaasi waa cusub u baryey buundada waangayna ay u tahay taariikh abid lama ilaawaana intaa kadib wafdiga socdaalka horumar toobiye uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa gaadhay buundada taariikhiga ah ee waangay iyadoo madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotayna ay indheendheeyeen qaabka habboon ee loogu soo dugay biyaha webi shabeelle goobtoodii hore ee hadda ka hor laga leexiyey buundada rasmiga ah ee waangay ayaa lagu xaqiijiyey in socdaalkii qaadan jiray in ka badan 3,500 oo kilomitir si socod iyo soo socod laga dhigo 70 kilomitir oo kaliya degmada xamaro waangay laga hiday iyo salaxaad socodkoodu hadda waa 70 kilomitir halka hadda ka hor uu ahaa masaafo aad u dheer shacabkana sanooyin badan kala qoqobay tusaale ahaan qofka ka taga magaalada Jigjiga ee doonaya inuu aado degmada laga hidaa waxa hadda ka hor uu ku qasbanaan jiray inuu ka soo wareego magaalada Hawaasa ee shucuubta Koonfureed isagoo soo dhaxmari jiray deegaanka Oromada kana soo gudbi jiray magaalada Gindhid una soo gudbi jiray degmada laga hidaa balse hadda laga raysay masaafada inta leeg kadib markii la hirgeliyay buundada rasmiga ah ee waangay sida wabigananiyo markuu saaray waangay biri sahala loo maro xisbigeenan samawaade dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9% korna waan soconnaa sida wabigananiyo markuu saaray waangay biri sahala loo maro xisbigeenan samawaade
dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9 boqolkii korna waan soconnaa waxaana si wada jira buundada rasmiga ee waangay xadhiga uga jaray madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo wasiirka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka mudane suldaan maxamuud xasan iyadoo xadhiga jar kadibna madaxweyne cabdi maxamuud cumar mas-uuliyiintii la socotay bulshadii ka soo qayb gashay ee ka kala socday degmooyinka waangay lagahida iyo salaxaad ay si farxad leh u dullugeeyeen buundada taariikhiga ah ee waangay oo cidhif ilaa cidhif ay luku dulmareen iyadoo buundada rasmiga ee waangayna dherarkeedu u dhan yahay 9 mitir sida wabiganaaniyo markuu saaray waangay biriij saxaala loo maro xisbigeennan samawaade dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9 boqolkii korna waan soconnaa sida wabiganaaniyo intaa kadib madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ka hadlay munaasabadan xadhiga laga jirayey buundada rasmiga ee waangay ayaa ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee buundada rasmiga ee waangay ay soo martay isagoo tilmaamay in buundada rasmiga ee waangay taariikhdeedu ay ka astaysan tahay 14 bisha Miyaasiya 2007 oo ahayd xilligii la dhagax dhigay xadhigana laga jaray buundadii hore ee ku meel gaadhka ahayd waqti xaadirkana xadhiga laga jaray buundada rasmiga ee waangay 14 bisha Daqiiqtii 2009 marka koobaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabka degmada waangay iyo guud ahaanba gobolka degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Erar ee maanta ka soo qayb galay xafladan xadhig jarka buundada waangay ee midda rasmiga ah ama midda waxa weeyaan dherarkeedu yahay 97 mitir marka waxaan leeyahay oon halkan doonayaa inaan idinka soo jeediyo hambaliyo waxa weeyaan qaali ah oo ku saabsan xafladan xadhig jarka buundada waangay waxaana leeyahay marka koobaad hambaliyo dhammaan shacabka inta haddaan kasii gudbo waxay ahayd 14 bishii Miyaasiya 2007 tirsiga dalkeenna maalintii la dhagax dhigay buundadan rasmiga ah ama concrete-ka ah taasoo ahayd maalintaas 14 bisha Miyaasiya 2007 oo ahayd maalintii xadhigga laga jaray isla buundadan kale waxa weeyaan birta ah oo markaas iyada ah lafteedu aan waxba ka dhicintan maanta aan furay maadaama ay ahayd markii ugu horreysay ee gobolka Erar ama Nogod ay isku xidhmaan kadib markii la sameeyey buundadaas birta ah xadhiggana laga jaray 14 bisha Miyaasiya 2007 xukuumadda iyo xisbigu iyadoo eegaya baahida jiray iyo dhibaatada shacabka haysatay gaar ahaan isku gudubka dadka iyo dunyada ee webiga dacaladiisa kala degan dhibaatada laxaad kale ee waxa weeyaan webiga iyo cadowga ku dhex noolaa uu ku hayay iyadoo eegaysa ayay si ka gonaasho leh oo isxilqaan leh markaana ay lexjecla ku jirto waxay go'aansatay buundadan meeshan taalla ee birta ah oo ahayd midii taallay faafan ama dhagax leh taasoo waxa weeyaan ahayd buundadii ka hor buundada dhagaxle laga sameeyey intaan la samaynin ka hor tii la isticmaali jiray ama buundadii uu talyaanigu sameeyey ayay ahayd waxayna ahayd mid ku timid ama ay riixaysay dhibaatada aan ku aragnay socdaalkii halkan aan ku nimid halkan haddii aan qodobo ka xuso waxay ahayd sheekooyinkan ama dhibaatada hadda la soo dhigay iyo mid ka ballaaran ayay odayaasha halkan maanta halkan fadhiya hadalka qaarkood qaateen soo dhigeen taa annaga oo waxa weeyaan qaadanay niyadna naga ahayd ayaa waxay noqotay socodkii aan soconnay in markaan marayna dhagaxle buundadan aan ku aragnay oo taalla goobtii ayuu fikir nagu dhashay dadkii socday meeshii hoggaaminta socotay waa la qaadi karaa iyo lama qaadi karaan isku qabannay in la qaadi karaan isla garanay ciddii qaadi lahayd oo dhan ayaan maxaan ku rahay isugu yeernay injineeradii iyo dadkii wax bartay
intuu waxay yidhaaheen lama qaadi karo mana suurtagelayso laakiin iyadoo ay nawado baahida ama dhibaatada halkan aan ku aragnay awgeed yaa waxaanu ka cararnay nin kastoo yidhaaha lama qaadi karo waxaan soo dhoweynay nin kastoo yidhaha waa la qaadi karaa sidii gaadhigii taayaraynta loo soo sameeyey oo waxa weeyaan bir iyo laxaamad lagu dhalaaliyey baabuur dabada lagaga xidhay birtii isjiidkana lagu xidhay baa la soo qaaday halkan bay soo socotay halkan bay timid markay timidna iyadoo toga la soo duwin yaa bannaankaa lagu sameeyey taa markaa 14 bishii miyaaza 2007 ayuu dhammaaday xadhigiina laga jaray taa markaa ujeeddadu keliya inaan ku istaagna ma ahayn laakiin taas waxay noo saamaxday in muddada maanta aan samaynayno ee xadhigga laga jaray ee tan iga dambaysa ah in waxa weeye la sameeyo ayay maxaan kuna noo saamaxday sababtoo ah haddii buundadan ayna jirin ama webiga labada dhinac aan la isku gudbin lama samayn kareen missionaryna ma gudbeen dadna ma gudbeen haddase laakiin waxaa fududaatay maadaama buundadan ay jirto in tan weyn la sameeyo 97 mitir ah meesha ay ka tahay tani 30 mitir dhererkeedu meesha birtu ka tahay inta isu jirta waad garan karaysaan haddii aan soo qaato waqtiga waxa weeyaan lagu talagalay waxay ahayd in lagu dhameeyo 8 bilood 9 bilood sida deegaanka Soomaalida laga bartay projectada hayaan mashruucada 10 sano qaadanaya ama 5 sano qaadanayay waxay noqday kuwo hal sano gudahood lagu sameeyo balse laakiin tan laga bilaabo 14 bishii Miyaaza 2007 ilaa iyo maanta oo ah ay taariikhdu tahay 14 bishii Diqimti 2009 waxa u dhaxeeya hal sano iyo 6 bilood ama 18 bilood plus minus ayaa u dhaxeeya 18 bilood 6 bilood shaqadu way taagneed siyaabo kala gedisan iyo sababo kala gedisan ama dad aan shaqadan ogolayn caqabadaha ku ahaadaan ama dad waxa weeye iyagu hormardiid iyo nolodiida caqabadaha ku ahaadaan caqabadooyin fara badan bay soo martay buundadani muddo 6 bilood ah waxaa la isku dayay oo waxa weeyaan ama nin halkan joogo sameynaya haato oo ku xun xiliir la sameynayay ama mid waxa weeye isagu boolatikii iyo nidaam kale ugu xun haato intuba waxa weeyaan caqabad baa la geliyay laakiin waxaa mahad iskale ilaahay maanta suurto geliyey in halkan aan iskugu nimaadno oo xadhigga laga jaro inagoo is hortaagan buundadiina gadaasheeda ka muuqato baabuurtii dadkuba iyo xooluba ay ka gudbayaan waxaana xasuustaa in waxa weeye xilligaan joognay aan la kulannay odayaal iyo xoolo waxa weeyaan gacanta lagu gudbinayo isagiyo xooluba iyo xaaskuna kala dhex marayo dibadda markaan ku waraysan oo noo sheegay in xilligan la soo waday ninkii soo waday odayga inuu yidhi xaas baana kala dhex maray marka taas dad ay ka dambayso birtaa buunda way ka dhigi rabitaankaana ka dhigaya marka waxa weeyaan muddadan annaga naguma dhib yara shacabkana kuma dhib yara samaysigeedu ma dhib yara go-aankeedu ma dhib yarayn inuu halkan soo gaadhana ma dhib yarayn madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa ka warbixiyey kharashka ku baxay buundada rasmiga ah ee Waangay iyo buundadii hore ee ku meel gaadhka ahaydba buundada haddaan eego kharashka ku baxay labada marka la isku daro lacag 90 milyan oo bir ayaa ku baxday 90 milyan oo bir intee leego xoolo geelay goysaan haddaad tiraan 20 marka lagu dhufto 4500 ilaa 5000 ay noqonaysaa 5000 oo neef oo geela haddaan geela halin ku sheego 5000 oo neef oo geela inta la gaday lacagteed baa ayay la mid tahay marka haddii waxa weeyaan aan lacagna u bedelana 97 inta u dhaxaysay noqoni waxa weeyaan buundada gooni baa loo xisaabin karaa shaqooyin kale ma taqaana garab socodina ama togo oo la leexiyo na waxa weeyaan lacag badan baa ku baxday tusaale ahaan 4 kilomitir baa la leexiyay oo Shabeelle waa arkayseen oo idinkoo goobjoog ah yaa waxa weeye meeshiis inta laga leexiyay meel cusub loo sameeyay taa lacagta intee leeg baa ku baxday in tog la sameeyo cusub si kan banaanka looga helo marka waxa weeye arrimahaas oo dhan baa ku baxay buundada kale haddaan soo qaato waa buundada waxa weeyaan mayumuluqo oo iyadana ogsoontiin mayuno dhibaatada noocaas oo kale ah maanta laakiin 67 bay socodkii noqday halkan markaan lakiidiisa la xadeego 70 kilomitir bay isku jiraan laakiin gaarigu lugta waxaa laga yaabaa dadku inayna fahmin lug waxaa laga yaabaa inuu qofku helo chance uu ku gudbo hal mar webigoo yaraaday taa maaha marka laakiin gaadiid baabuur la sheegayo oo baabuur gaadiid laga hadlayo waxa lakiidiisa la xad waxa isku jiraan saad idinku ama aad maqraad ka tiin 70 kilomitir bay isku jiraan laakiin in la isku wareego 3000 oo kilomitir bay ahayd sababtoo gaadiidku intuu halka ka baxo ayuu wuxuu tagayaa fiiq baabili buu tagi baabilina awaasu tagi awaasa markuu tagana xaq ku tagi gindir buu tagi gindir iyo awaasa intay isku jirtaa waad garan karaysaan go'an baag 3100 kilomitir buu uu noqonayay maanta laakiin
3,000 oo kilomitir ayay maanta waxaa laga dhigay oo ilaahay ka dhigay 70 kilomitir socdaalkii 3,000 oo kilomitir noqonayay ayay waxay ka dhigaysaa 70 kilomitir dadku waa laga yaabaa inay la yaabaan laakiin maanta idinka hor fadhiyo oo gobolka Erar oo dhan maanta hor fadhiya lama yaabaysaan sababtoo waad garanaysaan laakiin dii salaxaad oo dhankayga midig iyo bidix kala 70 kilomitir bay isku jiraan baabuur hadduu dabcin isku wareego wadada Gandhir martay inuu soo galay ma wada kale ma jirin marka waxaan leeyahay taas waxaa iskale mahadeeda ilaahay baa iskale idinkuna inaad ku mahadisaan ilaahay suurta geliyay anaga waxaan dhigi karaa dawladda sabab uga dhigay laakiin hadduna ilaahay suurta gelin cagabtu halkan deemayna marteen halkii mareysina waad garan karaysaan marka taana waxaan leeyahay waad garan karaysaan haddaa soo qaato wadada isku xidhan Baabili iyo waxa weeye Fiiq qandaraaskeedii waa la bixiyay hadda in la bilaabo baa waxa dhilaamidii waa wada ka soo baxda Baabili oo misraaq imay bari tagaysa ilaa iyo misraaq ama maxaan ku raayay imay bari waxa waa laami weeye waxaana loo kala qaybiyay mashaariicda mashruuc waxaa la yidhaahaa Baabili Fiiq mashruuc baa la yidhaahaa oo taas gooni baa loo bixiyay mashruucna waxaa la yidhaahaa Fiiq Xamaro ka kalena waa Xamaro maxaan ku raayay imay bari intaasaa loo kala qaybiyay mashaariicda saasaa lagu tartamay labadan baa la horeysiin hadda waana la bilaabi doonaa laakiin inta ka horeysa laamidu maadaama muddo qaadaysa la hagaajiyo wadada shirkadda waxa weeyaan iyo xafiiska jidadka wuxuu u samayn doonaa si degdeg ah in baabuurka uu waxaan ku raacsan oo kale ayna noqonin yalla si degdeg ah loo samayn doonaa wada tir degdeg ah la gelin doonaa sida wabigananiyo markuu saaray waangay biri sahala loo maro xisbigeenan samawaade dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9% korna waan soconnaa shacabkii ka soo qayb galay munaasabadan xadhigga laga jiriyay buundada rasmiga ah ee Waangay oo iyaguna soo bandhigay dhibaatada iyo dhaawaca uu gaarsiiyay xaasku sanooyin badan sidoo kalena ka warbixiyay dadkii iyo xoolihii xaasku ka cunay iyagoo tilmaamay in biyaha Webi Shabeelle sanooyin badan ay tiranya ku raabeen waqti xaadirkana tiranyada sanooyinka badan haysatay ay ka bogsisay xukuumadoodu aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in maanta riyadii abid ayna ku fikirin loo hirgeliyo arrinta meelo badan oo ku aragnay dhibaatooyina waxaan aragnay 13 rito reerkan annagu joognayahay oo laga soo qaaday bisha baali la geeyay waxaan aragnay iyadoo qulaan la keeno oo loo soo diiday eegana xarada nadiga noogu tagay kobtan ku dhameeyay haaska eega ama 5 nin ama 6 nin oo haas cunay oo eega kobta fadhiya wada naafaa jirta oo eega boqodaneega joogta waxaa lagu mahadinayaa adiga madaxweynaha ilaahay baa noo kaa dhaliyay anuu 18 jir baan ku imid webiga 14 doodna waan ku dhalay hadda eega lugta waan ka taagnaan laho waayo haastaa eega bidixda dhowr ninna eega way joogtaa oo aad dhaawacuu waxaanu degnaa ree geeldooxeed iyo gasaangas labadaba waanu nahay wadiisuu wax la koobi kara annagu koobi kara ma aha annagu baa wax ka garanayna waxaad moodaa buundadii iyo meejaba annagu inna loo sameeyey dad shalay daawan baan arkaya webiga annaga webi daawasho waxba nooma darmay buundadan annagu baa naloo sameeyaan leeh alxamdulilaahi rabbil caalamiin ninkii aan sibiq ku aragnana nagama baxayo dadka ummadda sida kale alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ula simannahay laakiin webigu candhaduna dhigay dadku candhada dhigaannahay dadku dhaawiciisu badan yahaannahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waad naga baahi tirtayoo waanu kugu mahadin haynaa dadkaasaanu nahay dadka ummadda intiisa kale waxaa weeye hadduu wada dhintay dadku oo soo wada noolaysay nolosha waan wada la qabnaa intaasaase gaar nagu sii ahaydoo webigu gaar noogu hayo yaa nagu sii ahayd buundadan weligeed wax badan buuna dhalay dadkanagii iyo dunyadanagii uu dhameeyey aniganaad arato iyo xaasweyn baa ay qaaday lugta xaasweyn baa ay qaadayoo 3 badood baa lagu dhuftay kolkii laiga fujin waayey anigana maaji baa laygu dhuftay laftii dhudhunkahay way iriiqantayoo waxaa la ii waaya laf
waxaan waxaa weeyaan waxaa galay oon ruugun baa galay intaasaan dadka dheer reewey baan ahayn waan kugu mahadsannahay oo dowladdanadii iyo madaxweynahanagii ilaahay allah noo raajiyo magaciisa allah raajiyo weligana webigun baaban joognaa meel laba ma dhaafne maxaaskeenna cid gudbin unbusaa ii maroojiyey maroojis buu ahaayee lugta eega laabi mahaye masoo laabi kara lugta labaan dabada ka wada webigaan tallaabinhay sidaa weeyaadaan madaxweynaha magaciisa allah inoo raajiyo ilaahayka cimrigiisa allah inoo dheeraayo sidaa weeye waa sidaa ninkii necabna waana necabna aad iyo aad maanta waxaan ugu faraxsanahay xadhigka jarka buundada rasmiga ee degmada Waangayeed taa oo ahayd meel qarfa ah oo waraabaha uu galo aan bulshada deegaankana wax nacfi ah u leedahay una jirin aad halkaas maanta ugu faraxsanahay waxaa kaloon ku faraxsanahay hadda maalinkii u horeysay halkan madaxweynuhu yimid anoo ninkii la socday baan ahaa geedkii bardaha dhaarta biyaha ku fadhinay aniga isagii nin kale maanta iyadoo buunda inaan dul istaagnay taana aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad maanta ilaahay baa cimrigeena soo gaartay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalinkii markii aanu soo kicitinay halkan u soo kacaynay aad baan u naxsanaa anugu qowgan intuu leeyahay farihiisa iyo dheerarkiisa dhibaato waxa weeyaan buundana meeshan lagama sameyn karo marka maanta dhibaato baad madaxweynaha iyo waftiga la socotaba dhibaato baad gelinaysaa maanu qalbigayga ku jirtay dhibaato yaasaasa ku jirtay markii aanu qowga afka ka soo galnay waxaan xasuusanahay madaxdii la socotay socdaalka ku weelisay qaarkood intay jiirta ka waasaday inay dusha iska fadhiisteen marka aan jiirta soo galnay madaxweynuhu madadaaladu noo hayay mar aan jiirta ka soo dhaadhacay maana garanayninba jiirtii dhaaray madadaaladu noo hayay waxyaabuhu noo weydiinayay mar aan ka soo dhaadhacay waan garan waayey markii aanu halkan aanu soo hargalay aan halkan ka kicitinay haddana sidoo kale mar aan jiirta ka jeexnay iyadana maana garanayn yacno socdaalka waxa aan ka bartay iyo markii hore soo socday sidaan waxaan aan ku fikirayay wax aad u kala fog bay ahayn xaqiiq ahaan wax aad u kala fog bay ahayn maantana waa markii saddexaad halkan xadhigka jar uu ka dhaco Waangay buundadii hore ee ku meelgaarka ahayd markii xadhigga laga jaray iyo maanta oo buundadii rasmiga ahayd ee weyneed xadhigga laga jaray maalinka hore buundada ee hore ku meelgaarka xadhigga laga jaray ayaa iyadan tan la dhaxdhigay lafteeda la dhaxdhigay maanta tii ayaa maanta xadhigga ayaa laga jaray marka arrintaas waxaad ka arkaysaa ama cidii dambe la arkaysaa nidaamka uu maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya uu marayo kobaca dhaqaalaha iyo horumarka iyo isku duubnaanta guusha lagu gaaray iyo cidii soo haysay dhammaan halka waxa weeye maanta qof kasta oo wadaniyad leh farax ba aad farax buu la dhacaya aad waxa weeye waxyaabo badan oo damiirkiisu markii hore aan ku jirin ayaa u muuqda marka waa wax nolosha qofka wadaniga meel kasta oo joogaba wax saameyn kara weey xaqiiqa ahaan guushana ilaahay baa ina siiyey dadaal badan oo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo xisbigu ay bixiyeen iyo waxa weeyaan naftooda horeyaasha ciidanka qaaliga new booliska ee deegaankan ka dhashay dhaartii ay mareen iyo go'aankii ay gaadheen naftooda ay u horeen iyo kuwa maleeshiduba iyo waxa weeyaan dhaartii ay u horeen ay naftooda ay ku waayeen ayaan ku gaadhnay ciddii ka naxday arrintaa ka naxdayna ha dhimato ciddii ku faraxday ee ka qayb qaadatayna allah cizayaan leenahay waxa weeyaan degmooyinkii baali ee hadda ka hor xidhnaa ee meel ay maraan aan jirin ee intaa oo 1,000 kilomitir ka soo wareegayay ayaa maanta waxa weeyaan waxay heleen wax aynan hadda ka hor aynan helin fikirkoodana ka maqnaa oo ah in ay gobolka ay ka tirsan yihiin erar iyo dowlad deegaanka Soomaaliya xarunta maarta looga atrimiyo Jigjiga in ay si fudud inay ku soo gaari karaan ayay heleen waxa weeye taana waa guulaha horumarka ee dhan walba gaaraya ayay ka mid yihiin oo ka meergihiin tan baa kow ka ah tageel dooxeed baa gacanta lagu hayaa tii waxa weeyaan qubbi baa jeerihi iyadana dhulka la dhigay tii maxaan ku idhahdaa mayu mulaqa iyadana sidoo kale waxa weeyaan gaar ahaan gobolkii hore ee nogobla odhan jiray ama Erebeega dhaho waxyaabaha maaragtay halbowlaha ee u soo kordhay kaabadaha dhaqaalaha ayaa halkan ayaa ka muuqanaysa waa waxyaabaha ugu waaweyn baa la odhan karaa Waangay waa meel dhulka ka mid ah wey waxaa ka horeysa horta jiritaankii ummadantada deegaanka ku nool ma jirtay mise mayna jirin waa mayna jirin baan leeyahay anugu intii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ka horeysay mayna jirin xisbigaasoo
كأنه مهدا أوهينا ويهي مدحوينه عبد محمود عمر iyo kamanidkiis uu yahay waayo ma baanaan jirin maxaanu buundo yeelanaa ma baanaan jirin wax buundo la yidhaahdo iyo jidad iyo laydh iyo caafimaad iyo waddooyin midna maanan lahayn maanaan jirin wax aanu ka sheekayn karro oonu tilmaami karro oonu odhan karro hadda waxaa iyo waxaasaannu u baahannahay maba jiro waayo wuxuuna u jirin annagu waxaanan garanayn buundo inaannu uga baahannahay waangay maanaan ogeyn waxyaabahan kada hadda deegaanka ama gobolka ka dhacaya maanaan ogeyn xukuumaddii keentay iyo madaxweynihii keenay hadduu wax naga dhimayo waxba nagama dhinaan leehay calankii dalkow ciiddayda hodanka cambarkii yaalul cinabgeedeeday cambaadii ku beerte canaha durduray dhirti wadaa cagaar calan iyo daruur ciiddayda hodanka horumar caamahiyo nabad lagu cawayn lagu baraciyaalkana ceeshkuna ku badan yahay culimadii duceeyeen ciyaalkuna amiin yidhi wacizye bakeeno calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igus calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igus ciidankeennu waa caam nabaddiid ka cayn jare al-shabaabna sii cunee calashaday waraaba wacizye bakeeno calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igus calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igus dirayska caddaankiyo ciid laysku daray qaarkii casaan yahay caleentuna ku badan tahay xiddigaha caddaanka gawadhida cadceedda wadayaasha caan baxay wacizye bakeeno calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igu simay calafkaygaa madaxweyne caamo rabbigii ciseeyo dadkiisii calmadayo canay ku daadsheen culimadii duceeyeen ciyaalkuna amiin yidhi horumarkana ku caan baxay wacizye bakeen calafkaygaa igu simay cimrigaygaa igu sida webigananiyo markuu saaray waangay dhiriid sahaala loo maro xisbigeennan samawaadee dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9% korna waan soconnaa intaa kadib waftiga uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa u dhaafay soo indheyndeynta buundada kale ee dhismaheedu socdo geeldoox iyadoo buundadana dhowaan xadhiga laga jari doono dhismaheeduna waqti xaadirkan si habsami lagu socdo madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo mas-uuliyiintii la socotayna ay indheeyeen buundada dhismaheedu socdo ee geeldoox oo heshiis ay ku galeen shirkadda jidadka ee deegaanka soomaalida Itoobiya iyo hay'adda WFP madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa tilmaamay in geedi socodka shaqo ee buundada geeldoox uu bogay sidoo kalena u mahad celiyay hay'adda WFP ee taageerada ka geysatay dhismaha buundada geeldoox tilmaamayna in dhowaan xadhiga laga jari doono buundada geeldoox oo sida buundada waangay adeega u bilowday u bilaabi doonto maanta waxaan taaganahay hadda waxa weeyaan waa geeldoox ayaan taaganahay gaar ahaan dhanka salaxad 2 sano iyo 2 bilood 3 bilood in arrimaha bridge-ka geeldoox ama waxa weeyaan waangay qubi waxa weeyaan mugweyn 4 bridge inaan isku dayno inaan sameeyno waxaan dhihi karaa 2 sano ka hor halkan webi shabeelle wax buundada waxa weeyaan waa buundadan raasa saaran iyo waxa weeyaan buundada godi waxaan ka ahayn iyo mustaxiil
raaso goday iyo mustaxiil oo garan karaysan inta isku jiraan intaas wax buunda oo webi shabeelle maxaan ku rahay deegaanka Soomaalida intuu ka maro inta kaliya saareed balse laakiin maanta halka waa geeldoox 25 cisho ama bil kadib uu dhamaani sida maxaan ku rahay uu qorsho yahay haday u badato bil baan oo qorsheysan inuu dhamaado ama shirkadda sameynaysa jidadka enterprise-ka jidadka dowladda deegaanka Soomaalida oo sameynaysa waxa weeyaan bil baa uu qorsheysan geeddoox bridge-keeduna aad buu ballaaran yahay xaqiiqi marka la eego halkan ilaa iyo buurta waxa weeyaan ilaa 7 kala farti baa ku jira oo ka weyn macnaa ama 7 bridge aan idhaahdo kala fartigu laftiisu waxa weeyaan waa bridge yar 7 kala farti iyo bridge-kii oo halka isagu aan xataa tiir dhexda lahayn ama concrete dhexda ka haynayaan lahayn isagu waxa weeyaan birti la isku xidhiya dalka dibadiisa lagu soo sameeyay marka xaqiiqi wax lagu farxo weeyaan geeldoox bridge-keedii oo halka maray maanta waxa weeyaan aan leenahay bil kadib ayaa xariga laga jaraya oo wax lagu farxo marka waxa ka dhigan tahay 4 buundo ayaa la saaray toga waxa weeye shabeelle ee gobolka Nogob iyo Erar Mara 4 maxaan ku raay waxa la saaray buundo ka dhigan tahay buundo waatan oo geeldooxa midna waa tii maanta aan jarnay waxa weeyaan Wangaya ta kalena waxa weeyaan waa Mugweyn waxa weeyaan iyo Qubi oo inta waxa weeyaan Erar oo webi shabeelle ku soo daro una Erar laftiisa webi shabeelle oo yara marka saaleeyahay marka waxa ka dhigan tahay dadka webiyada maxaan ku raay kala xiliyay 4 buundo saaran wax lagu farxo weeyaan mashruucan waxa maxaan ku raay fandigeeda bixinaysa ama lacagta DFID baale kontraadkana waxa wada galay WFP iyo waxa weeyaan Somali Road Work Enterprise ayaa waxa weeyaan heshiiska wada galay saasina mataqaana projectku ku socda meel fiican oo maraya saaka waxaan ku suganahay su'aalba uma baano waa baryay sacab ma qarin karo صعب ما قارن كرو wafta ku guda jiray socdaalka horumartoobiyey ayaa intaas kadib dib u soo laabtay iyagoo soo qaaday jidka isku xidha Wangay iyo Xamaro sida webigananiyo markuu saaray Wangay biriij sahala loo maro xisbigeenan samawaade dadka wuxuu ka saaciiday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 9% korna waan soconnaa